madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya ayaa goor soo gabagabeeyay khudbad ay ka jeedinayeen xarunta ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku shirsan yihiin ee Villa Hargeysa halkaas oo ay maanta isugu tageen labada gole ee baarlamaanka dalka iyo xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre fadhiga maanta marka laga reebo baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa goobjoog ahaa Ra'iisul Wasaaraha xubnaha golihiisa wasiirada iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad halkaas ka jeediyay hadalka madaxweyne Xasan Sheekh waxa ugu waaweynaa 5 qodob oo muhiim ah waxayna dhamaantood qotomeen ama ay taabanayeen heshiiskii shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbadiisa oo dheereed waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay 5 qodob ee aan ka calaamadeynay waxa kamid ah in uu sheegay in heshiiskaasi uu yahay xaaraan marna aan dhaqan gali doonin iyo in Soomaaliya taaka kamid dhulkeeda ama badeeda aysan bixin karin qof Soomaali ah oo xil ka haya dawladda dhexe ee Soomaaliya ama maamul goboleedyada dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dawladda Itoobiya ugu baaqay inay ka soo leexato wadada qaldan oo ay martay taasi oo xasarad ka abuuri karta gobolka iyo Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka wada shaqeyn karaan waxaana luqad adag ku sheegay in aan ciidda Soomaaliya badda iyo hawadaba aysan jirin qof Soomaali ah oo bixin kara waxay kale ugu muhiimsanaa khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah in go'aanka Itoobiya iyo Soomaaliland ay gaareen inuu yahay mid dhiiri gelinaya oo awood siinaya kooxda Al-Shabaab oo ku qaraabata in ay difaacayso Soomaaliya cadawna ay ka difaacayso madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in Al-Shabaab oo gabaabsi ku jira oo sii dhimanaya amaba Al-Shabaab oo waayahooda dhamaad joogo inay taageero ku heli karaan go'aanka Itoobiya iyo Soomaaliland ay gaareen ee ah inay is-afgarad ka gaareen bixinta 20 kiiloomitir oo badda Soomaaliya ah Al-Shabaab waxay ku heli karaan buu yiri madaxweynuhu taageerayaal iyo dhalinyaro u dagaalama maadaama ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu ay ku marnabaabiyaan inay dalka difaaciyaan qodobka saddexaad ee ugu muhiimsanaa khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah in heshiiska ay gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya uu yahay mid xasarad ka abuuraya gobolka keeni kara dhibaatooyin badan isagoo sheegay hadii Soomaaliya ay doonayso in Itoobiya ay faragelin arrimaheeda gudaha ku sameeyso madax banaanideedana ay dhaawacdo ay jiraan fursado badan ee arrimahaas ku sameyn karto saaxiibo badanna ay waqtiyo kala duwan ka dalbadeen laakiin ay dawladda Soomaaliya u hoggaansamin si uu ilaaliso madax banaanida dalkaas waxa kale oo qayb ka ah khudbadda madaxweynaha in heshiiskaasi uu yahay mid ka hor imaanaya xeerarka caalamiga ah iyo sidoo kale sharciyada dunida ka jira kan gobolka iyo sidoo kale midowga Afrika waxaana wadamada caalamka ugu baaqay in lala xisaabtamo dalka Itoobiya go'aanka ay gaareen oo meel weyn uga dhacaya madax banaanida iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka roon tahay maanta sidii ay ahaan jirtay waqti ay xaaladan ka tabaryareedna aan lagu dhiiranin in la haweysto ciideeda badda iyo hawadaba haddana ayba joogto marxalad wanaagsan oo ay dalku difaacan karaan dadka Soomaaliyeed oo ay awood ku leeyihiin amaba aysan jirin baqdin ay qabaan haba yaraatay gabagabadii Soomaaliland ayuu ugu baaqay in aysan jirin dawlad madax banaani ay ka heli karaan oo adduunyada ku taala qasabna ay tahay in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku hoos nool yihiin ay la heshiiyaan tabashadooda u sheegaan laakiin waxa ay raadinayaan ee dalalka dunida ay rabaan inay ku siiyaan qayb kamid ah Soomaaliya aysan suurtagal ahayn riyadaasna ay ilaabaan muqdishona ay ku xirtaan qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa hadal jeedintii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo wali shir gudoominaya fadhiga baarlamaanka dhankiisa waxa uu sheegay in uu aad uga xum yahay go'aankaas in aan la aqbali doonin wax suurtagal aysan ahayn dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku noolna waxa uu sheegay in aysan raali ku ahayn taageersaneen uu og yahay dawladda Soomaaliya inay talaabo degdeg ah qaadi doonto Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa si la mid ah hadalkaasi jeediyay waxa uu sheegay in weligiis uu taagnaa jiro midnimada Soomaali haddana uu taagan yahay una dhiman doono labada gudoomiye baarlamaan waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in dalka ay dhiigood u daadiyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ayaa go'aankaasi mid la mid ah qaatay waxa loo yeeray safiirkii Soomaaliya ee Itoobiya joogay si wada tashi loola yeesho waxaana kadib dhici karta in dawladdu mar kale ay go'aan gaarto qodobadaas ayaa ugu waaweynaa khudbadii maanta ee madaxda Soomaalidu u jeediyeen waxaana hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo aadayaa saacado un kadib markii baraha bulshada warbaahinta Soomaalida kuwa Itoobiya gobolka iyo dunidaba ay aad u falaqeeyeen heshiiskii shalay Addis Ababa ay ku gaareen Somaliland
iyo dowladda Ethiopia gudaheeda waxaa ka socda banaanbax waxaad u moodaa dadka Ethiopiaanka ahi inay riyoonayaan oo ay wax weyn u arkaan heshiiskaasi oo aan ahayn mid dhaqan galaya dadka Ethiopiaanka dowladooda waxay ku hagaysaa siyaasad ruwaayad ah